لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت qof walba maalin ayuu dhimanayaa naf walbana geeridu waa ay dhimanaysaa balse maalin maalmaha kamid ah qof walba oo adduunka u jeceshahay maalin buu ka tagayaa qabriga ayuuna aadayaa adigana waad ka soo laabanaysaa maalkii uu tacbaayna adduunkan ayuu ka harayaa waxa kaliya oo qabrigiisa laga leeyna waa camalkiisa Allah subhanahu wa ta'ala marka hore camal wanaagsan hana siiyo annaga Allah subhanahu wa ta'ala raali naga yahayna nafta Allah naga wafsado waxaan halkan ugu tacsiidinayaa walaasheeda hodan oo ah walaalaha social media ku jiro oo ka geeriyooda seegeeda run ahaantii geerida waan la dhadhaminaynaa waana la dareemaynaa waana waxaan ognahay geerid inay tahay tii nabiga sallallahu alayhi wasallam ka ooysiisay taa uu markuu geeriyoonay oo ka aruursada dhammaan ummadihiisa oo dhan xanuunada ay mari lahayn oo la ilmeeyay saasay tahay xanuun waan dareemaynaa Allah subhanahu wa ta'ala ha ka raali noqdo ha ku daro kuwa maalinka yawmal qiyaamah oo leeyahay Allah subhanahu wa ta'ala ayna mutahaabuna bijalaali اليوم أذلهم في ذلي يوم لا ذل إلا ذلي أبوكم أني ويني سجع على أبوكم أني درسي سجع على ما أنت أيان هرني يا هركي ما لين أوسنجرين هر إلا أني هركي ما مويانم ما أنت أي تهادو كو إمادو ما أنت ملك الجوس ودرو ما أنت أجيش هذا إمادو ساعة ساعة لو مدريو ساعة هذا ساعة كم بدك مريس from أهم كي ساعة تعسير تيراين له أيان أدريا ولا شيء هذا الله سبحانه وتعالى سمريو إيمان هكسيو الله سبحانه وتعالى qalbigeeda ha u qaboojiyo iyadii caruurteedana Allah subhanahu wa ta'ala hana watiyeelo meel walba ay joogan dalkana ma joogan waa ay naga maqniin dibadiisa ay jiraan waa dareemi kartiin qof qurbaha joogo aan dad Soomaali aan ku badnayn meesha qofkii tiirka guriga ahaan uu ka geeriyooday waa dareemi kartiin dareenkayga halkan kuma soo gabagabeyn karo laakiin waxaan Allah subhanahu wa ta'ala mar labaad ugu barayaa ay mar badan inuu ka mid noqdo kuwa maalinka yawmal qiyaamah Allah subhanahu wa ta'ala uu yicdoon oo leeyahay kuwa aniga ah darteeda isu jeclaa maanta waxaan harinayaa harkay maalin uu san jirin har ilaa aniga harkay maahan wassalamu alaykum